انت عانا مقعود الشيقين ما عينا كتغي لكن واحد مدى عيدا كي تراويشتا دولة بودلان قبل قن هايلان iyo sanaadba ku sugnaayay ciidamadii booliiskuba inta badan joogaan bahda warbaahinta oo barnaamijkan tiri doonta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal iyo marwooyin maanta sharaf weyn bay ii tahay inaan booqasho idinku nimaadno booqashadan oo ay igu weheliyaan mudanayaal tiro badan iyo toddoba wasiir xildhibaanada ila socday intii hadashay waad garanaysaa anoo ugu horreeyey xildhibaan mahdi iyo xildhibaan cawaale iyo xildhibaan cali axmed dahar oo deegaan doorashada ka soo gala goboladan iyo xildhibaan axmed kule waxaa isaguna halkan ka hadlay xildhibaan cabdiraxmaan biiri carab iyo xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri iyo xildhibaan cabdi siciid kafad carab waxaa markaa iyaguna igu weheliya intaas waa intii hadashay xildhibaan faarax darmar iyo xildhibaan maxamed xasan carab oo garabkayga midig taagan iyo xildhibaan cabdiraxmaan muuse iyo xogayihii joogtada ahaa ee baarlamaanka puntland sidoo kale xildhibaan cabdilaahi iyo xildhibaan sheekh cabdilaahi iyo xildhibaan cabdilaahi yuusuf qaylo iyo xildhibaan axmed xariir gutaale oo aniga dhalinyarada geeska xiga aadka ugu bilicdasan runtii waxaan rajayn doonaa mudanayaal kala badan oo safarka nagu soo helin lahaa shaqooyin waa xilliga baarlamaanka uu galo wafuudda u baxo baa waxay u kala baxeen gobolka bari iyo gobolka mudug sool iyo gobollada intooda kale qaarkood way nagu soo biiri doonaan insha allah bilaakiin intaan kormeerka ku guda jirno waana u cudur daaraya insha allah bilaakiin mudanayaal yarweyn annaga halkan waxaa u nimi shaqadii baarlamaanka oo ahayd inaan shacabka iyo dalkaba ka warqabno duruufahooda deegaan duruufahooda dhaqaale duruufahooda siyaasadeed iyo duruufahooda horumarneedaba waxaan u nimi inaan dareenkiina idinla wadaagno iyo taayagaba ogaano xaaladiina dhabtaa dhulka aanu mari doono oo aan maanta joogno caasimadii gobolka highland ee degmada dhahar inaanu u kuugalno waxa jira mashaariicdii hore ee dowladihii kala horreeyey ay dhagax dhigeen oo ugu dambeeyeen mashaariicdii ugu dambeysay madaxweyne sida cabdilaahi deni uu dhagax dhigay inaanba waxa qabsoomay iyo meeshay marayaan iyo sidii ay wax u jiraanba aanu ogaano wixii cusub aanu sidnay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasaaradda haweenka wasaaradda deegaanka kolley wasaaradu iyagaa noo qaabilsan oo sheegi doona wixii kale ee hawle ee markaa taagan ee aanu wax idinkala qaban doonana sida uu xogow ila wadaagay taliyaha qaybta booliisku aan hadalkayga kusoo gabagabayn doono waxaan idinkala qaban doono waxaanu diyaar idinla nahay maadaama dadka iyagii tihiin shacabka iyagii tihiin reer puntland wixii kasta oo la kari karo oo dowladda puntland kari karto inaan idinla qabanno maanta iyo mar walba aanu diyaar idinla nahay ka baarlamaan ahaana mas-uuliyadda iyagii dhabta ahayd ee matalaada shacabka aanu maanta diyaar idinla nahay wixii taagan inaanu iska waraysanno ka wada hadalno kulamo ka yeelanno ilaa caawa ilaa beri subax inta aanu joogno si dhaba isaga waraysanno wixii waray aan idinka qaadaynona aan idinka qaadno gaarsiino dowladdii iyo dalkii intii harsanaa wixii aanu wax ka qaban karanno ee isheeda qabatana aan wax idinka qabanno mudanayaal marweyn markoowaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii halkan ka wada hadlay oo dhan ay ugu horreeyeen cuqaasha iyo waxgaradka dadka deegaanka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ururka haweenka oo ay hogaaminaysay faadumo maxamed warsame oo runtii ah qof hawlkara oo shaqo wanaagsan qabatay waxaan iyagana u mahadnaqayaa dadkii meeshan aan maanta joogno golahan quruxda badan sidaa u bilay ee quruxda badan ee ka shaqeeyey ilaa xalay shaqaynayay ilaa maanta ilaa shalay shaqaynayay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa shacabka gobolka highland gaar ahaan degmo dhahar ee sida wanaagsan loo soo dhaweeyey madax iyo shacabba
aada iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhawaanteedii si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada ka soo jeeda degma Dacar oo naga soo horreeyay xildhibaan Mahdi iyo xildhibaan Cawaale iyo wasiirada degma Dacar oo wasiiro Puntland weeyaan laakiin magaalada ku dhashay wasiir Saciid iyo wasiir Mustafa naga soo horreeyayna iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka si cagshire iyo intii la shaqaysaba oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka degmada iyo taliska qaybta booliska iyo ciidamada barnaamijka oo runtii barnaamijkan iyo amnigiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo baliciisa si wanaagsan uga shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa wixii waxqabada iyo intaan ka taaban karayo waan ka taabtay waxaan kolley dadaan oran doonaa laakiin laba kelmadood oo inaan idin idhaahdo ka shacab ahaan waayada dambe waxaan maqlayay niman qurbatooga oo is urursaday oo facebooka ka hadla oo ka dhawaajinayay wax leeda maakhir baanu samaynaynaa khaatumaan ku darsanaynaa runtii aniga maadday ila muuqatay waana idiin sababaynayaa markaan idiin sababeeyo haddaan been sheegayo waxaad odhanaysaan intaad fadda tagtaan guddoomiye been baad sheegtay khaatumada ay sheegayaan cali khaliif galeed baanu ka ogeyn oo la wareegi jiray oo odhan jiray madaxweyneaan ka ahayn caaqkii ugu dambeysay isagoo la goostay oo hargeysa la galay baynu ogeyn ee weli somaliland baan kula heshiinayaa haddana xaalad u jooga khaatumada ay markaa heshiiska la galeen ee ay leeyihiin waan la midoobaynaa waa khaatumada cali khaliif gale hargeysa la galay muddana uu u tabliiqeynayay somaliland iyo sidii uga shaqayn lahaa urur kale oo ka horreeyey oo dadka deegaanadan gobolladan ka soo jeeda ay lahaayeen SSC baa jiray nin in adeerkeena oo la odhan jiray xagla toosiye ayaa isaguna la galay hargeysa wasiir caafimaad buu ka helay maafurka la sheegayo waxay noqon doontaa urur noocaas oo kale lagu aasaaso oo beri lala gala hargeysa ama burco taa ogaada marka haddaad doonaysaan maanta ayaad xortihiin oo guddoomiyihii baarlamaanka oo dalkan iyo magaaladan ku dhashay oo ka soo jeeda iyo waftiga ballaadhan intaa leegin hortaageen haddii aad rabtaan in hargeysa laydinla galo xor baad u tihiin codkiina inaad maanta sheegtaan mudanayaal iyo marooyin nimanka hadlayey waad ogtiin mashruuca ugu ballaadhan ee gobolka ka socda waa waddada ceeldaahir ceergabo waddada sheerbi xingaloolna waa la dhex dhigay waa bilaami doontaa miyaad weligiin maqasheen qurbad joog reer haylaan iyo sanaagaba intay shireen lacag ku tabarucay oo waddada taageeray oo dhaqaalo soo bixinaya waxaan maqlayay xalay ilaa shalay $100 baa la soo diray oo taayiro lagu gubayo $100 ee la soo dirayo foostada daamurkaa ay waddada u baahan tahay waa $100 ee waxa ka wanaagsan inay foosto daamura ku yidiyaan waddadu maanta waxay u taagan tahay oo ay u baahan tahay 40,000 oo foosto 40,000 oo qof oo reer haylaan iyo sanaaga ayaa min foosto bixinaya nimankaa waxaan leeyahay $100 ee aad ku bixinaysaan taayir la gubo iyo qalalaase iyo in shoo bareed dalka laga sameeyo amnigiisa lagu qalqalgeliyo $100 dalka ayaa u baahan waddadaa u baahan ee foosto daamura noosasiya mudanayaal iyo marwooyin ilaahay idankii waxaan rajaynayaa facebooka inaad ka waantoobi doontaan iyo nimankaa aan sheegayay run ahaantii dhab baan aqaan waxaan ka garanayaa 3 nin oo ka mid ah 2017 halkan markii somaliland ay lahayd doorashooyin baan hirgelinaynaa waxay laba ka mid magacyadooda ma raba inaan sheego laakiin waa la sheegi doonaa ururka wadani bay Minneapolis iyo Minnesota ay uga ololeynayeen oo ilaahay uga ogyahay midna u cudbo ah maantana waxay leeyihiin maakhir baanu samaynaynaa wax la yidhaahdo oo khaatumo loola goostay hargeysa baanu la gelaynaa waxayna u socdaan fikirkoodii ahaa hore ee Soomaali diidka ahaa waxayna rabaan inay intay wax dhiibtaan hargeysa la goostaan waxaan runtii aan ku dardaarmayaa oo ku talinayaa dalkani waxqabad ayuu u baahan yahay waad ogtihiin waddadii ceergaab meel bay fiican bay maraysaa badan iyadoo go'doona 2013
22 January ayaan tagay anigoo la socda madaxweynihii hore dowladda Puntland madaxweyne Cabdulle Maxamed Algaas oo markaa wuxuu ahaa u tartamayay musharax madaxweyne isha barameed meesha la yidhaahdo shacabka saa ugu qaaday biyaha wuu ka cabay waxaan haddii aad guulaysto madaxweyne wuxuu u baahan yahay gobolkani waddo magaalada badan biyo u baahan tahay gobolka Sanaag iyo Highland 15 ceel biyood in gaaraysa baa laga hirgeliyay waddadii waa la soo gaarsiiyey waa intii airportka barameed waa shaqeeya 30 maalmood diyaaradda ayaa ka kacda bangiga barameed anaa joogay oo gacantayda ku furay wasaaradda maaliyadda anaa joogay oo gacantayda ku furay wuu shaqaynayaa dakhliga ka soo xirooda ciidanka daraawiishta oo saraakiishoodii joogaan iyo hay-adaha dowladda ayaa mushaharkooda laga bixiyaa wuxuu noqday gobollada Sanaag iyo Highland gobollo isku filan oo kaalinta saddexaad ee maanta Puntland ku jira iyaga ayaa mararka qaarkood mushaharka laga soo dalbaday Nugaal Gardafuul iyo meesha la yidhaahdo Mudug iyo bari laga bixiyaa laba Sanaag baa khasnadeeda lacag ku jirtaaye mushaharka laga bixiyo gobolka heerka amaraya maanta cidna ka yeeli mayno inay amnigiisa iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa ay ka soo horjeedaan waxaanu kula waaninaynaa qurbajoogta goboladan ka soo jeeda intaa Facebooka ka hadlaysaan dalkiina iyo dadkiina hal maalin soo booqda waxuta gobolka Highland oo aan maanta joogno shacabkiisa waxaan ku doorinayaa walaalayaal dadka axmaka taliska aan sheegay aan ka hadlaynay cawaasiifta waxba inoogu fadhiin iyagu naftooda waxba ugu fadhiin inaad aragtida guracan ee ay Facebookyada ka faafinayaan aad ka waantoogaan waagan dambena ogaada Facebook wuxuu noqday xaruna meel laga xukumo magaalada Muqdisho ee Maxamed waxaan runtii ku dadaali doonaa in aragti gaara iyo fiiro gaara loo yeelan doono waajibaadka dowliga laga qabsan doono cid kasta oo gobolada tan iyo deegaankan u dhalatay ee reer Puntland oo isku dayda inay amniga iyo nabadgelyada iyo horumarka ay xoog geliyaan waxaan idin ballan qaadaynaa in horumarka socda la sii labanlaabo annaguna horumar ballaaran oo buuxalle dowladda Puntland bay ballan qaadaysaa inay gobolada ka baxdo wixii baahayaa ka hadlayseen ee guddoomiyaha gobolku ka hadlayna waxaan ka ballan qaadaynaa inaan qoraalka qaadno aanu idinka gudbinno waxna laga qabto taliya qaybta wuxuu sheegay wuxuu saldhigga dhahar wuxuu baahan yahay lacag degdeg ah oo $5,000 lacagta baarlamaanka Puntland ayaa qaaday annagaana bixinayna annaga inta qabsanayna waxaan ku soo koobayaa uqaasha iyo odayaasha iyo mindarboodka iyo maamulka degmada iyo ka gobolka israakiisha ciidanka daraawiisha iyo booliskaba waa fadhiisan doonaa wixii gobolka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa ku jirana waanu isleegi doonaa isimada iyo uqaasha iyo dhaqankana waa la fadhiisan doonaa waa idin joognaa ilaa caawa soo dhaweyntiinii qoraxda badnayd aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin si gaara iyo si guudba waana mahadsantihiin waxaana idin leeyahay idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu